sadacdooyinka qaar ayaan dabagal ku sameynay oo markaasi aanu islahayn waa ay mudan tahay bal in sida warbaahinada kale ay u baahayeen si ka duwan bal in aynu u dabagalno si xogo iyo macluumaad aan isleenahay qabi ay ahayn oo waa laga tagay ayaanu dabcan dabagal ku sameynay si dadku ama jamaca in daawanaya ama daawadayaasheen ahba ay u helaan xogo iyo macluumaad dhameystiran oo xaq iyo sidoo kale riyaa iyo dhab ahaanshaha sheekada ku qotoma dhacdada la xiriirta muwaadinka Soomaaliyeed lagu gubay Muqdisho kolkii la dilay kadib dhacdo argagax leh ayay ahayd dadka siyaabooyin kala duwan ay uga hadleen talaabadaas dabagalada qaar markii la sameeyay waxa soo baxay in loo dilkiisa loo aaneynayo ama uu yahayba haybsooc dhanka guurka ah maadaama ninka la dilay reer ahaan uu ka soo jeedo dadka la faquuqo waa sida Soomaalidu ay tiraahdeen gabadha la guursadayna ay ka soo jeedo beel isu aragta beelaha ugu tunka weyn ee Soomaaliya in iyagu yihiin gaar ahaan waxa la yiraahdo afarta beelood ee ugu waaweyn marka laga hadlayo awoodda Ilaahay dhamaan bini aadamka waa uu karaameeyay quraankiisa ayuuna ku xusay isagoo dhahaya walaqad karabna bani aadama dabcan qof walba Ilaahay uu uumay koonkan jooga waa uu karaamaysan yahay karaamana cid gooni ah dabcan ama reer gooni ah ma uga baahna marka dhab ahaan dib loogu laabto dhaqanka wanaagsan iyo sidoo kale tixraaca diinteena islaamka ee suuban ee iyadu ah waxa hagta dhamaan muslimiinta iyo sidoo kale ba caalamka wariyahayaga Cabdishakuur Shaasha ayaa u guda galay sheekadan soo socota bilowga geediga dhacdadan argagaxa leh iyo sidoo kale halka ay ka soo askumatay bilowgeeda iyo sidoo kale halka sheekada iminka ay joogto Shaasha soo dhaw waxa aan u kaba gashtay soo gudbinta sheeko la xiriirta gaarhayihii godka u galay jacaylkii guuleystay marxuum Axmed Mukhtaar Saalax oo u mootan dil iyo dab la isugu daray kadib taageero heel iyo hoole oo uu la dul taagnaa lamaanihii qarniga mudane Maxamed Cabdiraxmaan Mukhtaar iyo marwadiisa Ruqiyo Cabdullaahi Maxamed oo iska calmaday dadka go'aansadayna inay baabi'iyaan dhaqan soo jireen ahaa oo ka hor imaanaya diinta islaamka salkana ku haya haybsooca guurka Soomaalidana ay caado wanaagsan u haysato Muqdisho kuma cusba in maalin walba lagu dhinto laakiin waxa sheeko cusub ah in la gubo qof nool dabadeedna loo diro qabriga dhacdadan ayaa salka ku haysa guur dhex maray dadka loo yaqaano 25ka ama beelaha la haybsooco iyo gabar ka dhalatay beelaha afarta loo yaqaano ee Soomaalida marxuum Axmed Mukhtaar Saalax gaarhayihii godka u galay jacaylkii guuleystay waxa uu dunidani faaruujiyay abaare 11kii subaxnimo 20kii Sebtembar 2018 kadib weerar uga yimid qaar ka mid ah ehelada gabar uu u guuriyay wiil uu adeer u yahay waxaana dilka marxuumkani loo adeegsaday baangado kadibna isaga oo dhaawac ah ayaa la qabadsiiyay dab kaasi oo sababay inuu ugu dambeyn u geeriyoodo marxuumka shala marka wiilkay waa inta jooga gaar intuu sameynay cidna ma la joogan ay soo weerareen gabar aydeeda saddex rag shan ay ahaayeen adiga wiilka inta lagu soo weeraray warna lagu mudi faasa lagu dhiftaadane oo dhacay asoo dhacay taabana bas inay ku fiican way gubiyaan oo dhintay markoo dhintay wiil ay si garaacay qab aaway dadka xaafadda joogay aaway marka waxas dhacayaan dad ma jooga xaafadda dibada wiilashu inta ka shaqeynaa asaga la shaqeynaa taa ma joogin wiilka gabadha qabo aabihiisa iyo habartii maxkamadda laga wacay shalay maxkamadii ay journalist ku haysta ameedkana dhaca xagga la geeyay bas wallahu alayhi gudbiya idinka intii mid laba gabdhood ay helaan ay qabsadaan wiilasha waa kala ordaan aan wiilka cidna say ugu fiicnaa ninka gacanta ii waayo ahay bas ninka cid u roonayo ahaa bas sigaaro yahay oo badan waa ka tagay waxa uu dunidani uga tagay 12 caruur ah oo ay ugu yartahay gabar 3 bilood jirta iyo laba xaas waxaana sharaxaysa qaabka ay wax u dhaceen Saciida Aways Xaaji oo kamid ah xaasaskiisa isla markaasina ahayd bahda weyn ee marxuumka mootan gabadhii wiilka marka la saraacsiiyay waxay tiri iima ahaatay tir abgaal iyo jareer ay heshiiyay man ii noqoto war walaal islaam aan leeyahay ummadan ilaaha abuurtay islaamka dhan way isguursadaan ma ay tir jareer haranoo naga yahay ma guursano waa gabadha hooyadeed
habarta 3 bir miya 2 bir ay xorneed dooda way socotay shalay maxkamad in lagu soo kala baxo gabadhina waaba la keenabo yacni arinta la xaliyo markay raggiina maxkamad jiraan ay ogaadeen guriga dad ay joogeen Axmed kaligiisa meeshan ku shaqeynayay Axmedkii banaanka ugu yimideen ay ku dileen la xiro waxaad sharaxdaa bal qaabka dilinka u dhacay Allah si xun ay u dileen si xun ay u dileen dil aan sheegi karo ama afkeyga soo mari kara ma ahan noloshay ku gubeen iska dhaafay islaam qof ah yuhuudka xataa saas looma dilo see yeeleen qofta isku kordamisa anigoo ahaa xaaskiisa weena ahay si xun ay u dileen Axmed way dandareesteen way dileen Allah miskiin oo weligiis dad ma dulminin hooyo aab dadka waxa dadweynaha waa la yaqaan caalamka oo dhan laga ogyahay dadka arabtiin weydiiya banaanka baxa qofka arabtiin wareesta walaalayaal waa idin bariya igu duceeyni kaas dadka dilan ilaaha ka sabaabina insha Allah wax kale oo sheegi kar malaha qaar ka mid ah carruurtii uu ka geeriyooday marxuum Axmed Mukhtaar Saalax ayaan kala sheekaystay dareenka ay ku reebtay geerida aabahood iyo sidii ay wax u arkeen abe waxa makal wadili waxa loo dhuf baangada iyo waxa loo waxay ibn digo oo geedka suun leh ee baar galiyeen adiga kaal soo dhow magaca Abdixafiid iyo warabal maxaa shal dhacay abe iskaliisa inta shaqeeyay dhalinyaro kale laba u joog waa ka tagtay iskaliisa loo imaad adeerkii waa maqnay iskaliisa loo soo joogay imaad in lagugu yaso qabiil aad ka dhalatay wax weyn kama aha Soomaaliya waase dhaqan laga soo minguuriyay juhulo aan diinta islaamka haysan xilliyadii adoonsiga uu ka jiray dunidan Soomaalida qaar waxa ku dambeeya dhaqanka haybsooca guurka oo reerka gabadha ku kalifa inay u diidaan gabadhooda ragga geeya iyaga oo ka cararaya inay in ku noqoto hadhow su'aal ku adag ka jawaabisteeda qof walba oo mas'uul ah kuna saabsan haybsooca guurka ayaan hordhigay xildhibaan Cabdifataax oo kamid ah baarlamaanka aqalka hoose ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya aniga waxaad kamid tahay xildhibaanada aniga igu matala baarlamaanka Soomaaliya aniga hadda ku hadlay marka Soomaalida xildhibaanada baarlamaanka hadda ka jira xildhibaan walba waxa uu ku matala beelaha ka jira Soomaaliya aniga adaa igu matala haddii aan maanta ku dhaho madaxweynaha gabadhiisa waa Farmaajo ama ra'iisul wasaare gabadhiisa ayaan isfahanay oo inaan isguursanaan isku fahanay ma kula tahay inaad ii dooni lahayd mase kula tahay inay isi lahayn ayaga horta waa maasantahay shaashaale guurka sidaan kuu sheegay waa isfahan u dhaxeeya labada qof inay raadi isaga noqdaan at-taraadi waa shardi ka mid ah asaaska isguursiga waxyaabaha kale horaan kaga hadlo diinta kuma xusna waalidka maanta Farmaajo hadaad ka doonatay hadaad khayr ka doonatay ayaga waxa u banaan inay ka fiiriyaan ilan madaxdii dalka waaye inay sharciga ilaaliyaan loo baahan inay ka fiiriyaan sharciga iyo diinta waxay ka qabto shaashaal haday ku soo baxdo inuu dilaa yahay mooriyaan yahay inuu fidno wada yahay inuu balwad la yahay inuusan mas'uuliyad qaadi karinna xaq waxay u leeyihiin inay yiraahdaan gabadheena bohol kuma toori karno laakiin intaasi waxaan ahayn haday ka hor yimaadaan oo automatically ay yiraahdaan shaashaale waa beesha jareer weyne ay yiraahdaan taas waxay tahay hadee waxaan ku wada joogno oo sharci ah ma jirto sharci nabad aan wada ilaalinayno ma jirto nin walba waxa waaye dhankiisu waxa waaye ka daranaya marka aniga waa ku dooni lahaa jawaabta laakiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay wada hortaalaan ay adag markaan u doonano ujeedada weydiinta su'aashaasi ma ahayn mid aan uga gon leeyahay kaftan ama ku macaanaysi sheeko balse waa tusaalaysi la xiriirta sidii sharciyada jinsiga iyo qoyska ee dastuurka dalka loogu dari lahaa ka hortagga haybsooca guurka oo wax caadi ka noqday gudaha dalka ogow waxa aan ahay gayaan geeya gabadha madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha balse waa calaan casha oo ay timo ka soo baxeen inay xilahayga noqoto xitaa haddii aan si dhaba isu jeclaano waana cudur ku dhacay qulubta Soomaalida maanta marka laga soo reebo in yar
oo ilaahay u nimceeyey. maxamed cabdiraxmaan mukhtaar oo ah wiilka sheekadani ay ka bilaabatay ahaana wiilkii ay ruqyo cabdulaahi maxamed ka dooratay ragga, sidoo kalena ah wiilkii uu adeerka u ahaa marxuumka geeriyooday ee u gargaarayay jacaylkooda, ayaa sharaxaya sida jacaylkooda uu ku bilowday, wixii ay isla soo mareen iyo miraha ka dhashay jacaylkooda. laba sano wada socnaa gabarta walaasheeda ah kulay hawarteeda xawad waa isla deganahay xaaladeena waa ka warhay jiric la wada yahay laakiin dhanka diinta bini'aadamka oo dhan waa isku hal muslimaan inaa dhahda gaal waaye xaaraan u iyahay gabarteeda ma ku xarmo jireer waaye eey waaye xaaraan waaye marka maba igu xarmato gabarteeda ma ku xarmato marka aniga mana qabataa inaa qofka bini'aadamka muslimka inay saas loo. ruqyo cabdulaahi maxamed waxa ay go'aansatay inay la noolaato maxamed cabdiraxmaan mukhtaar oo ah wiilka ay nolosheeda u doortay, waxaana ay sheegtay in jacaylka uu ka weyn yahay qabiilka. soomaalida ayayna dardaaran ku tiri qofka bini'aadamka hadduu qof jecel yahay qabiilna meesha taagan qabiil dhamaan weligii qabiil ma qiimayna maana yaa taa ma badin ana qofka bini'aadamka hadaa jeclaatid qabiilkiisna weydiina. maxaa ku soo jeedin soomaalida idin daawanaysa, maxaa kula talinay waalidiinta dadka isjecel, maxaa tala u jeedinay qabiilkina iska dhaafaan qabiil waaba laga dhamaado ma aana qabiil meesha ma taale dadka hore ku dhaqmi jirnay madaxaadka fiican waalidka qabiil kuma adeegayaan dad la isku dinaya macna dad la dhiig leen isku daayay macna qabiil waxa taraa mana qofka bini'aadamka dad si dhab u jeceshaan qabiil dhan weydiinaysa war hoy dunida yaan lagu kibrin nabad ha loo daayo. cabdishakuur shaasha RTN muqdisho.